Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya ciidamada dalka Ruushka ee ku sugan bariga dalka Ukraine ayaa duqeeyay degmo halkaasi ku taala wararka laga helayo ayaa iska soo daba dhacaya gantaaladii ugu cuslaa ayay weerarkan u adeegsadeen ciidamada dalka Ruushka faahfaahin dheeri ayaan daawadayaal idinkaga xog ayaan idinku soo gudbi doonaa barnaamijyadeedkan idinku soo maqan dhismo ayaa halkaasi ku burburay ciidamada dalka Ukraine waxa ay sameeyeen weerar rogaal celisa waxa ay ku qaadeen ciidamada dalka Ruushka ee halkaasi gantaalada ku garaacay weeraradii Moscow ayaa dib u weeqmay kadib iska caabintan ay sameeyeen ciidamada dalka Ukraine wararkii ugu dambeeyay daawadayaal idinkaga halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa ee daawadayaal soo dhawaada daawada muuqaalkan like saarsiina share garay inagu soo bir subscribe inoo sar channelka Faragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb daawade markaana waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay ciidamada dalka Ruushka ayaa wali wada duqeymaha ay ka geysanayaan bariga dalka Ukraine shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukraine ayaa baadi goobaya in ka badan 30 qof oo la rumaysan yahay in ay ku hoos jiraan burburka dhisme ay burburiyeen gantaalada Ruushka baarasaabka gobolka Buffalo Karalenko ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay xiriir la sameeyaan 2 qof oo ku hoos xanibnaa burburka dhismahan ayaa ku yaala degmada Jasif Yar ee dhacda Kramatorsk bariga dalka Ukraine madaxa degmada Kareferi ayaa sheegay in gabi ahaanba gantaalada Ruushka ay burburiyeen warshad ku taala halkaas ciidamada dalka Ruushka ayaa tan iyo markii la wareegeen gacan ku haynta gobolka Luhansk waxa ay iminka sii dardargeliyeen in ay duqeeyaan ama duqeybaha ay ka geysanayaan qaybaha kale ee Donbass bariga dalka Ukraine ayayna weeraradooda toos uga soconayaan waqti xaadirkan hadda waxa la soo warinayaa in ay duqeeyeen degmadan Jasif Yar la yiraahdo oo dhacda Kramatorsk isla markaana ku taala gobolka Donetsk oo dhaca gobolka Donbass bariga dalka Ukraine wararka hordhaca ay laga helayo waxay sheegayaan in gantaalada ay ciidamada Ruushka ku garaaceen halkaasi ay geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena waxa la soo warinayaa in ay burburiyeen warshad halkaasi ku taala oo wax soo saarka Ukraine ka qayb qaadanaysay sidoo kale waxa la soo warinayaa in dhismaha burburka uu sababay in dad ay ku xanibmaan dadka ayaana halkaasi ku hoos jira ilaa iyo haddana shaqaalaha gurmadka degdega waxay ku dadaalayaan qaabka ugu macquulsan ee dadkaasi loo soo badbaadin karo ama dadkaasi loo keeni karo banaanka si ay looga soo saaro dhismahaasi burburay oo ay iminka ku hoos xaniban yihiin baarasaabka gobolka Buffalo Karalenko waxa uu wariyaasha u sheegay in arintani ay tahay arin aan loo dul qaadan karin waxa uu tilmaamay in ay markan xog wareysanayaan dadka halkaasi ku xaniban 2 qof oo ku xanibnaa burburka ayuuna tibaaxay inay u suurta gashay in ay xiriir la sameeyaan waxaana iminka tirada ku hoos jirta burburka lagu qiyaasayaa in ka badan 30 qof waxaana la rumaysan yahay in tani ay tahay dhacdo markaasi xanuun badan gudoomiyaha markaasiba gobolka Donetsk Buffalo Karalenko waxa uu sheegay in weerarkan gantaalada Ruushka uu yimid saacado uun dabadeedna ay ciidamada Ukraine sameeyeen iska caabin aad u xoogan gobolada Donetsk iyo sidoo kale Luhansk oo dhaca bariga dalka Donbass waa bariga dalka Ukraine waxa ay ka mid yihiin gobolada gooni u goosadka waxaana aad u taageera dalka Ruushka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaana dadaalo aad u xoogan wada ciidamadiisa ama saraakiishiisa ayuuna ku dhiirigelinayaa inay weerarada si laba jibaaraan saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in labada weerar ay dhaceen Sabtidii halka wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in Moscow ay ururinaysay ciidamo keeda oo ka socda Ruushka oo dhan meel u dhow Ukraine baarasaabka gobolka Donetsk Buffalo Karalenko waxa uu ku sheegay adeega fariimaha Telegramka in gantaalka Ruushka uu ku dhacay halka la yiraahdo Kiivka oo ah magaalo ka dambeysa jiida hore ee dagaalka wuxuuna sheegay in la duqeeyay xarumo kale oo dadweynaha markaasiba ay ku noolaayeen baarasaabka Luhansk Serhiy Gadai
ayaa sidoo kale Telegramka ku sheegay in ciidamada Ruushku ay ka ridayeen jiidda hore gantaalo aad u culus inkasta oo weerar rogaal celis ah oo Ukraine ah uu ku qasbay Moscow inay joojiso weerarkeeda. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay ama uu tibaaxay in ciidamada Ruushka ay si ula kac ah u beegsadeen dadka rayidka ah. waxay si sax ah u rasaaseeyeen qaybta la dego gabi ahaanba si ula kac ayay u duqeeyeen si ula kac weeye guryaha caadiga ah iyo walxaha rayidka ayay burburiyeen ayuu ku yiri hadal uu soo saaray madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Ruushka oo toddobaadkii hore sheegtay in uu maamulo dhammaan gobolka Luhansk ayaa beeniyay in uu beegsaday dad rayid ah. Zelensky waxa kale oo uu shaqada ka ceeriyay dhowr ka mid ah ergeyga sare ee Kiev ee dibadda isaga oo sheegay in ay qayb ka tahay dhaqanka diblomaasiyadeed ee caadiga ah. wuxuu sheegay in uu safiiro cusub u soo magacaabi doono dalalka Jarmalka, India, Czech Republic, Norway iyo sidoo kale Hungary. Zelensky ayaa ku booriyay diblomaasiyiinta in ay markaasiba durbaan u tumaan taageerada caalamiga ah iyo hubka heerka sare ah si ay u gaabiyaan horumarka Ruushka uu ka sameynayo dalka Ukraine. US madaxweynaha halkaasi hogaamiya waa Mareykanka Joe Biden ayaa u saxiixay Ukraine xirmo hub ah oo qiimaheedu u gaarayo ilaa $400 milyan oo ay ku jiraan 4 kale oo dheeri ah oo ah hababka gantaalada dhaqdhaqaaqa sare HIMARS la yiraahdo. balse Ukraine ayaa la kulantay dib u dhac diblomaasiyadeed markii Canada ay sheegtay in ay dib u soo celin doonto marwaaxadaha la dayactiray oo shirkadda Gazprom ee maamusho dowladda Ruushka ay u adeegsan jirtay gaaska dabiiciga ah ee Jarmalka. Ukraine waxay ku dooday in soo noqoshada ay jebinayso cunaqabateynta saaran Ruushka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ku boorinaya beesha caalamka inay ku biiraan ciidamadooda si loo cambaareeyo gardarada Ruushka ayaa u sheegay inuu walaac ka muujiyay dhigiisa Shiinaha Wang Yan oo ku aadan la jaanqaadka Beijing ee Moscow. shaqaalaha Ukraine-ka ayaa markaasiba arrintan waxa ay ku tilmaameen mid aad u xun. labadan qof ayaa wada hadallo markaasiba 5 saacadood qaatay ku yeeshay dhinacyada shirka G20 ee wasiirada arrimaha dibadda ee jasiiradda Bali ee Indonesia. Sergey Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa isaga baxay shir halkaasi ka socday isagoo ku dhaleeciyay reer galbeedka dhaleeceen kulul. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay iyadoo aan faahfaahin laga bixin in Wang Yan iyo Blinken ay ka wada hadleen arrinta Ukraine. waxay sidoo kale soo xigatay Wang Yan in xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka uu halis ugu jiro in la sii wado iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in Mareykanku uu la ildaran yahay xanuunka la yiraahdo xenophobia. si waliba noqotay dagaalada ayaa sii kordhaya waxaana ay noqonayaan kuwa sii karaar qaadanaya. Ruushka ayaana duqeymihii ugu xoogganaa iminka ka geysanaya bariga dalka Ukraine halkaasna waxaa ku dhamaanaya dadarayda ciidamada Ukraine ayaana wada iska caabin aad u adag. reer galbeedka ayaana taageeraya wadankan Ukraine. wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. daawada muuqaalkan like saarsiina share garay inagu soo bir subscribe inoo sar channelka Faragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbin oo ku maasantahay daawashadaada tan iyo barnaamijkana kiisa kale inteenu dib isugu kulmi doonaa. nabadgelyo.